badi dadka deegaankan ku dhaqan da'doodu waxay kor u dhaaftaa 100 sano, qaarkood waxayba gaadhaan da'da 145 sano. deegaankooduna waa mid caafimaad qaba oo aan laga aqoon xanuunada xunxun ee aadanaha ku dhaca sida kansarka iyo waxyaabaha la halmaala. haddaba maxay yihiin dadkani, maxayse tahay sirta ka dambaysa cimri dhererkoodu? warbixintan ayaynu ku eegi doonaa haddii allaha awoodda lahi idmo, balse ugu horrayn haddii muuqaalkani ku xiise geliyo fadlan like saar si ay dhiirigelin noogu noqoto. mahadsanid. hunza waa magaca qabiilkan oo macno ahaan noqonaya kuwa u midaysan dhinac keliya sida leebabka. qabiilkan oo diin ahaan muslim ah isla mar ahaantaana haysta madhabta ismaaciiliyada ayaa waxa ay ku dhaqan yihiin waqooyiga dalka Bakistan, waxaana la tilmaamay in amiir Karim al-Husseini oo ku nool Faransiiska isla mar ahaantaana loo yaqaan Aga Khanka afraad uu yahay hogaamiyaha ruuxiga ah ee qabiilooyinkan. dadka deegaankan oo qiyaas ahaan la tilmaamay inay yihiin 920,000 oo qof ayaa da'dooda la sheegaa in ay gaadho 100 sano iyo wax ka badan, waxaana ay ku nooloodaan nolol caafimaad qabta iyo cimri dherer. habnololeedka quruxda badan ee ku tiirsan wax soo saarka dabiiciga ah iyo in ay yihiin dad aan waxba dibadda uga iman ayaa loo tiriyaa inay tahay sababta barakada cimri dhererkooda iyo ku noolaanshiyahooda nolol caafimaad qabta. tusaale ahaan cuntadoodu waxay ku salaysan tahay cunista khudaarta caydhinka ah, midhaha iyo borotiinka sida caanaha, ukunta iyo waxyaabaha la midka ah. waxa ay sidoo kale ku maydhaan biyo qabow xataa bilaha sanadka ugu qabowga badan. qaabnololeedkoodana waxaa ka mid ah socoshada 15 ilaa 20 kilomitir maalintii, orod iyo qosol maalin kasta. waxaa intaa dheer haweenka qabiilkani marka ay jiraan da'da 65 sano waxa ay leeyihiin wejiga da'yarta, waana kuwa gebi ahaanba caafimaad qaba isla mar ahaantaana ilaa da'da 70 sano ku ilmo dhali kara. deegaankan lagama yaqaan xanuunada halista ah sida kansarka, macaanka, dhiigkarka iyo waxyaabaha la midka ah sababtoo ah habcunoodkooda dheeliga tiran iyo jimicsiga joogtada ayaan saamaxayn midaas iyada ah. sida oo kale waxa ay cunaan cuntada freeshka. haddaba waxay isweydiin leh sidee ayay dadkani ku noqdeen kuwa caan ah oo dunida badanaa laga yaqaan. sirta ka dambaysa caan ahaanshaha dadkan ayaa ah dhacdo la yaab leh oo dhacday sanadkii 1984 markii amniga garoonka diyaaradaha London uu qabtay nin lagu magacaabo Cabdulmandu iyo baasaboorkiisa oo taariikhdiisa dhalashada ay ku qornayd 1932. waxaana ay taasi ka yaabisay amniga madaarka maxaa yeelay waxa uu u muuqday inuu jiro da'da 30-meeyada. markaas ayaa la ogaaday sheekada qabiilkan oo ay si weyn u soo shaabaxday. dhanka shaqada ma laha qabiilkani warshad ama ganacsi weyn oo ay lacag ka helaan ama siiya xasilooni dhaqaale marka laga reebo ka qaybgalka suuqyada qaar si ay u iibiyaan midhaha iyo khudaarta, kuwaas oo aanay uga soo xaron lacag badan. sidaa daraaddeedna qabaa'ilkani waxa ay ku nool yihiin kaalmo dhaqaale oo ay ka helaan ururada caalamiga ah.